حسن محمد آديات باكو سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سكوت قاري قاقا ترسم آديات بانكو سلام يا إسلام آديات بانكو سلام يا لو تمنو سي حقا كدعضا صباح وناكسن لما انتي ورالك قالي إبراهيم علي صباح وناكسن ورالك انت صباح وطاي أنا صباح بيوطاي اليوم مرق ليس كبيرا حتى لو بليا قريب مرق ليس كبيرا حتى لو بليا عدك بيتك عدك بيت مهد أديات بكو سلامة يا ولا القالئة عبد الرزاق يوسف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرزاق صباح وناكس ولا القالئة نبضي النور عبد القادر مهاجر نبضي النور صوماليا هالنورات صباح حري تاي أول واحد ديسو قال ترى وقت في عن لكن هذا وحوي وقت ساعة بدن باشقية هذا يكلان كتجا جوري مرلو لما ساعة كدي بنبحيا عاو 4 ساعة بإيمانيا مركب waxay noqotay intaan bixin inaan idin soo galo marka aan raba inaan soo galo aad baan ku salaamaya waa ku salaamay dadka beedka aniga waa jiifnaa shacbigeena waa u habeen dawada yaasha waa ninka iyo Afrika kaliya absolutely ها maalmahan dhan waa saas daawada waa yaasha waa saas وأفريقيا أنا قاعد ياد بان سلامة يا دمانتين مهاجر أديات بكو سلامة يا غير قدر وسلامة يا محنكو دهاي تعود كبيت كمهد كيك عاشقة ورم أذنك غير أمريكا وتسيسي حنيسان ساسان على وقت الدنباي إذن تهي أنا جا يورب لاكيسي وحين نوت تهي صباح وري لبس ساعة صباح نمي نوت تهي مركا أما maxaan dhahaa 8 sida loo yaqaano maantiin waa idin salaamay wax yar baan rabay inaan ka dhaho arrimaha Soomaaliya dhamaantood inaan wax yar dul maro oo aan wax yar ka dhahaan rabay maanta badiif kicis ma jiro ma badiif kicis ma jiro Ilyas atam Otman
bintamaan aad iyo aad baa kuu salaamaya badaaf kicis ma jiro waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho Soomaaliya hadii loo baahdana marmar waa wixii la arko waa la iska sii laadayaayo oo hortayada ka soo baxa ama nagu soo dhaca waxaan arkahayay ayaantan maalin dhaweytar waa ka hadla ninkii la dhahayay qalbi xajar ama qalbi dacas oo ayaantan la wadwadaan arkahayay sababtoo ah doorashadii baa soo dhow kow markii dawladda iyadu timidna waa iyadii badiifkeeda la kiciyay oo lagu wanshalay ra'iisul wasaare Khayro wadanka siyaasadiisa aan weligiis yaalii soo galin farmaajo oo asagoo oo 20 ama gaarinba ka tagay wadanka ku soo laabtay oo 6 bilood oo dagaal iyo buuq uu ku jiray joogay wadanka hadhowna iska tagay oo situationka inkastoo kor kala socday farmaajo inay Tigray ay wadanka dhan haysato oo ninkii la oran jiray magaciisa ninkii la oran jiray Tigray ahaayo la oran jiray Gabre uu haysto wadanka oo filla Soomaaliya uu dhex fadhiyo uu ka taliyo uu ku dhex cadaydo subaxii intuu gambar soo dhigto guriga hortiisa waxa soo dhan wuu ogaa laakiin maxaan ku dhahaayto muu ogeyn inay jaajuusiin badan oo Soomaaliya jiraan marka dawladdii markii ay cusbayd oo adduunkii oo dhan gilgishay oo cadawgii Soomaaliya oo dhan gilgishay oo ummadii Soomaaliyeed oo dhan saas hal mar ay jaanta iskula qaaday oo aan la aragba weligeed ilaa 60kii ka hor 60kii baa ugu dambeysay Soomaali saas isku raacda oo maxaan ku dhahaayto saas iskugu duba dhacda marka cadawgii Soomaaliya oo dhan baa gilgishay oo naxay oo yiri bes Soomaaliya shaqadaad ka soo qabanayseen 30 sano waxa weeye waxay noqotay hal bacaad lagu lisay way israacday marka saal la aligeed nadiifo marka Soomaaliya waxay isdhaheen maxaad ku wanjali kartaan jaajuusiintii ay nimankaana ay iska jirin waxa la yiri tuuga kula taal tabka ma weydo soo waxa faantay maahan marka adduunka oo dhan way ka jirtaa jaajuusiin ama qaa'imul wadamiin laakiin waa la toogtaa annaga waxa weeye halgamaayaal bayba dadku u yaqaanaanba jaajuusiinta iyo qaa'imul wadanka waxa loo yaqaan halgamaa soo waxa faantay maahan ninkii wadanka burburiye 91 warlordka waxa loo yaqaan mujaahid maxaa la dhahay annaga adduunku markuu saa u shaqeeyo waxa weeye saa markuu shaqeeyo annagu saasa u shaqeynaa forar Soomaali ma fahmaysa waxaasna waxaan loo keenaya dad waxaan nahay markii horeetana dawladnimada aan waxba maxaan ku dhahaayto ka aqoonin oo si maxaan ku dhahaayto ay nagu soo gashay xornimadii markay qaateen gabiga iyagaba dawlad waxaan ahayn waxaan 30 sano dhamayn 60kii baan xoroynay 90kiina waa burburnay marka waxa weeye waxbarashadana waxaba noogu horeysay iskuulo la aado boqolkiiba waxa la dhihi karaa boqolkiiba 50 dadka Soomaaliyeed iskuulo ma aadi jirin oo ama maxaan ku dhahaayto iskuulo ma aadi jirin waxna ma baran jirin hadday quraan bartaan oo salaada bartaan bayba burusideenba oo baadiyaha waagi dambe xataa la keenay in dugsiyaal quraan iyo wax laga furo aad iyo aad baan ku salaamaya marka maxaan ku dhahaa dadkaygu jaahil bay ahaayeen maxamed siyaad barre alla yaa raxmu raaximin ba ugu horeeyay ololihii dadweynaha Soomaali la qora iyo wax maxaan ku dhahaayto in xataa reebaadiyii ba taaja loo dhigo marka dad iska jaahil ah macaanka dawladnimada aanan arag wax yar xor ahaa burburay baan ahayn ma fahmaysaa marka macaanka uu wadanku leeyahay iyo adduunka sida looga dhaqmo qaa'ilul wadanka macnaheedu dambiga uu leeyahay dadkaygu ma fahansano waxa kala weyn qabyaalada iyo qabiilka kala weyn wadanka qabiilka kala weyn marka qofkaasi caabudayaan qabiilkooda ah mideeda kale ummadda Soomaaliyeed madaxweyne farmaajo sheegay waa dad ama waxa weeye 100% bay xagga jiraan ama 100% bay halka jiraan waxa weeye dad emotional ah oo hadiibana la maskaxdooda la qaadan karo weeye dadka Soomaaliyeed waa dad aad iyo aad u ah maxaan ku dhahaayto u fudud ma garanayo waxaas meel ay nooga timid waxa weeye dad jilicsan weeye hadii ay noqoto inay wax qarbadaana macnaheedu dad xun ah oo wax walba qaribaya haday damcaan in ay wax wanaajiyaan dadka Soomaaliyeed ama qalbi fiicnaan iyo isku gurmasho iyo isjacaylna de waad yaabaysaa marka
dadka Soomaaliyeedna waa la dirsay inay yihiin dad qaluubtooda dhinac markay dhinacaas isku wada raaceen boqol bay israaceen dadka Soomaaliyeed February 2017 marka ogow dadka cadawgeena ama dawladaha cadawgeena way na yaqaanaan annaga dabeecadaha yaga iyo sida looga faa'iideysan karo tanta kale dad jaajuusiin oo Soomaaliya markay la shaqeynayaan oo adigiina ku yaqaana oo walaalkay oo guriga kugula nool de waxa weeye sirahaaga dhan iyo meesha u jilicsan tahay oo dhan bay maxaan ku dhahay tu gudbinayaan waxa la yiri gudunay imaada goyseen hadaan gabalkaygu kugu jirin Soomaaliba hore u tiri marka waxaan idin sheegayaa aan ku sii dheeraanaynin oo micno badan ba ay ila lahayn sababtoo ah dawladdeeda Soomaaliya ma ay sii wadwadin oo maxaan ku dhahaa oo ma jawaabto wayna ogtahay annagu intaan ognahay in ka badan iyo intaan aragno iyo aqligaan leenahay ka badan bay aragtaa wayna u jeedaa mideeda kale waa sagii dhahayay Cabdi Xaashi baasaboorkiisa iyo fiisaysan baa naloo keenay oo maxaan ku dhahaa wixii oo dhan baa naloo keenay ninkaas bulsho leeyahayna umalayn mayo inay farmaajo iyo maxaan ku dhahay qayr midna uu yaqaanay sababtoo dadka waa la isku keenaa maxaan ku dhahay dadkii dawladihii hore la shaqeyn jiray dad badan bay ka soo qaateen sida ninkii la oran jiray taabad oo kale ninka Sambolshay oo kale dad badan bay ka soo qaateen oo shaqeyn jiray marka ninkan nabad sugid buu ka shaqeyn jiray baa lagu yiri say ila tahay dad waxa uu keenay ay is yaqaanaan oo saaxiiba laakiin qof ay dib lu yaqaaneen ma aha nin marka maxaan ku dhahaa nabad sugidaada dhan ka shaqeynayo sirtii oo dhan lagu aaminay balse jaajuus oo qaa'ilul wadan kale to u jaajuusaya macnihii de markaasna dawladdu way cusbay oo maxaan ku dhahay to hay'adihii dawladda ciidamadu xataa meel ay kala joogaan saraakiishu intay hub haystaan siday u kala shaqeeyaan ciday la may aqoon markaas ay cusbayd ba dawladdu saastaan u banaan baxayno u farxaynay ba balaay naga hoos kacda marka waana wixii loogu talagalay dadka in la hanjabiyo oo dhulka barida loogu dhufto laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma oran waxa weeye ayagu waxbay maxaan ku dhahay istuseen laakiin Ilaahayna hawl kale u watay marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadkan asaga maxaan ku dhahay ku filan oo u jooga marka waxaan leeyahay adeerayaalow anagu waanu idin ognahay waana inaan aragnaa anigu hameen dhaweytan ka hadlo ninkaas ma raba inaan maxaan ku dhahay micno badan u sii yeelo asaga iyo kuwa jaajuusiintaay oo ilmo gabre iyo ilmo imaaraad iyo maxaan ku dhahay badgad iyo dumargad iyo maxaan ku dhahay takadagad iyo kuwa ka daba nuunaasa iyo asagaba macnihii waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ee qarnimada Soomaaliyeed jecel micno badan hawsi yeelinina sababtoo ah aniga kullay maxaan ku dhahay saasa idin dhihi lahaa ignore gareeya hadii maxaan ku dhahay to ay waqtigeeda noqoto noolaadaan asaga iyo groupkiisa haday waqtigeeda noqoto noolaadaan insha Allah ta'ala waa la soo saaraya maxkamad waana laga goynaya waxay galeen waxa la yiri asagu waaba meel ku carar u haystay kuwa maxaan ku dhahay to halka baasaboor haysta waanu soo saareen maxkamad tiirkana waanu geyn maalintay noqotaba wuxuu yiri markii aan bawdada ka jabay boqonka taagiisa bax ilaa markay ugu dulbooyaysa beerka ku ogsooni waxa weeye waxa la yiri ninka dabin u qoolaysa waa la isku kala daadiyaa ayuu ka diridne ninka dabin u qoolaysid waa la isku kala daadiyaa ayuu ka diridne waan ku salaamaya walaalo aad iyo aad baan ku salaamaya abwaan Ibrahim Deeq aad iyo aad baan ku salaamaya walaalkay aad iyo aad baan ku salaamaya marka reexamarkuna waxay dhahaan waa ku gabanahay oo gambar gaaban baan kuugu fadhiyaa gambar gaaban baan ugu fadhinaa insha Allah ta'ala maalina waanu daldalin haday noolaadaan oo is hortaya baqtiin asaguna awal buusan Soomaaliya sii joogayne meelihiisaas uu ka jaajuuska ka ahaa buu cararaya insha Allah ta'ala hadan cilla ku helnana waanu dileynaa walibana si xun baan u dileynaa asaga dhagax baan ku dileynaa insha Allah ta'ala ayaguna tiirkan geeynaa iskuul bulisiyan ku walibana qaa'il wadanka xabad lagu ma dhaftay waa la daldalaa ayaga kuwan Soomaali citizen ka halka baasaboor haysta waanu daldalaynaa xarag baan intaan kursi hoos dhignaan ka hoos bixinaynaa insha Allah ta'ala ilaahay idankeed
وإذا كسينا إن شاء الله تعالى أنتاس بانك كلا يهي dad badan oo aan fariir ku dhacay baan arkayay oo wadaniyiin oo aad u sharaf badan marka dadkaas aan rabay inaan maxaan ku dhahayeeto ninkaas la leeyahay qalbi dhagax iyo sambalolshe iyo qashinka balaayada iyo badgad iyo dumargad iyo dadgad iyo noocaas maxaan ku dhahayeeto ciilka hayaan rabay inaan intaas ka iraahdo arkayay wax soo qorqoray meesha la yiraahdo marka maanta waxaan rabaa horta dee galmudug meel fiican bay ku socotaa insha Allah taala waxaan leeyahay inta dhimana galmudug ilaahay idankii waxaan rabaa ilaahay idankii baan ilaahay ka codsanaynaa inuu ilaahay si fiican oo qurux badan ku dhameystiro oo ay maxaan ku dhahaay ka soo baxaan dad Soomaaliyeysan oo maxaan ku dhahaay qaramaysan oo Cabdishaaf aad iyo aad baan ku walaalkay السلام عليكم عبد الشافي قراد واديات بنكو سلاميا واد سو وعداي waxaan isleeyahay arrimihii aan ka hadlayay maana dhameystirin laakiin waxaan rabay inaan ka hadlo arrintaas galmudug in aan maxaan ku dhahay ummadda Soomaaliyeed ku baraarujiyo in loo istaago nin walbaba dadka reer galmudug iyo dadkii saaxiibo ku lehba inay sadooran dad qarankayaga Soomaaliya duminaya dadkii hore ummadda Soomaaliyeed u soo dhibaateeyay dadkii badahayagii hore u saxiixo wada gatay oo ninkii xildhibaan kulana xildhibaankiisa uu la hadlo ninkii oday dhaqameed kulehna uu la hadlo kii saaxiib kulehna uu la hadlo dadkaas meesha ku yaacay maanta qaylinaya arkay sida dhibaatada la ogaatana Soomaaliya ku dhigay haddana wali la daba taagan inaysan dooran qaranimada Soomaaliya nin garab taagan dawladdan iyo dawlad kasto timaado wadaniya in la doorto in lagu baraarujiyo oo la garab istaago campaign loo sameeyo inaan badgad dumargad dadgad ilma imaaraad kuwa boosaasa ku shiraya iyo macud midna uusan noo soo bixin iyo Soomaaliya reer miyiga Soomaaliya sidii loo horumarin lahaa oo 1920kii sidii loo noolaan jiray 2020ka unool baan rabay inaan ka hadlo taas inaan faahfaahiyaan rabay laakiin ninkaas qalbi xajar la leeyahay sambalooshana waa ku sii daba tuurto dad badan oo ka calaacalayaan arkayo Soomaaliyeed marka waa ku sii daba tuurtay marka garaad ku dhufa hawsha aad iyo aad waxa weeyaan qalbi dhagax iyo arrinka sambaloosh adiga ayaa dhameeyay waxaan u gudbayaa arrinka galmudug oo barnaamijku ku saabsan yahay waxa weeyaan mucaaradkii xitaa xoogaa yaroo boorsay maya abwaan oo airportka wala maqlayaa garaad waa lagu maqlayaa si fiican baa lagu maqlayaa wado xoogaa boorsa oo imaaraadku ay u soo dhiibeen oo dhulsamareeb laga dejay oo ay wadaan dadka u shaqeeya imaaraadka xitaa waxa weeyaan xildhibaanadii uf bay dhaheen oo sanka ka qabsadeen warana fadarayna baa la yiri lacag layne iyo aynu wada hadal iyo campaign waxa la marayaa waa ilaahay mahadi 2020 shacabka reer galmudug inay Soomaalida u horseedaan in xildhibaanka la soo doortay uu ku ganacsan yahay mushaharkiisa iyo shaqada uu qabanayo iyo dadkii soo dirsaday oo uusan raadinaynba sidii wixii ka dhacay Puntland maalintii doorashadii deni uu ku soo baxayo kale oo lacagta saa loo qaybinayay oo yaa lacag hayay xildhibaanadu ay lahaayeen waxaan inay horta shacabka galmudug xildhibaanada ay soo doorteen waxa ay fureen beej cusub oo maanta ninkii lacag iyo wax ka hadlaba loo oranay hay fadrayn agtay horteedana soo istaagay wajiga gooyay ma garata marka waxa weeyaan waa iska nimankii mucaaradka waxbay soo saarayaan waraaqay soo saarayaan walba doorashadii waa la afduubay waxa weeyaan doorasho aad ka heshay 36 cod ninkii ka badiyayna uu helay 54 cod deegaranaya sababta loo soo afduubay waxaan u aqaan doorasho la afduubay nin intuu kursi soo fadhiista waxba wada hela ama 70 cod hela ama 80 صح magarat صح marka hadda waxa weeye doorashada tii gudoomiyaha baynu aragnay marka aynu faraqayno gudoomiyaha ku-xigeenka gudoomiyaha saddexaad waxa uu ku guuleystay waxa weeyaan 60% majority-ga صح marka tirada boqolleyda loo eego marka lama dhigi karo
waxa weeyaan waa doorasho dad u aftuuban marka mucaaradku haddii lacagtii laga qaban waayay ha loo sheego waqtiga xilligii lacagta iyo waxaas iyo intaasaan haya iyo gorgortanka xildhibaanadu in ay meesha ka baxday because nabad iyo nolol waxa ay awal hore xildhibaanka marka la soo doorto waxa uu qabi jiray hami warniyo meesha lacag baa ka soo gashay odayadiina dee campaign baad soo gashay 6,000 baa kaaga baxay kursigan meeshaan aad ku socotina waxa weeyaan dee mushahar lagama bixiyo ma garad sax waa heer federaal ilaa iyo heer maamul baan ka hadlaya marka waxa weeyaan awal hore fikirka saasaa ku jirtay taas ayaa ku dhiri gelin jirtay xildhibaankiisa halkiisa cod ee laga yaabo inuu hadduu rabo 500,000 dad ama 1 milyan oo qof uu ku matelayo inuu iibsado oo lacag yar oo caruurtiisa iyo reerkiisa hodhow effect ku samaynayso dib u keenaysa inuu ku baayacdo kursiga ama inuu qofkana ka qaato oo yiraahdo igu shub ma garan waxayba u ooyayaanba oo meesha la soo taagayin sababta oo qofku hadduu xishoodka ka tago oo ilaahayna uusa ka cabsanayn rabbina uusa ka cabsanayn dadna uusa ka cabsanayn ilaahayna uusa ka cabsanayn naftiisana uusa kaaga baqayn doqonna yahay qaa'inul wadanna yahay waxa weeye waa wax aad iyo aad u indha adag soo waxa faantay ma aha أحمد دارود ما يسكت وحصلنا وضد كاس وضد وحوي انتي on سكنوا هالليا أدو قف انتي تمسي أهم وانتي مسكحيا وانت قلبي أهم وانت مركا wuxuu rabaa soo qoro aqlaaqdiisa iyo guriga hooyadiis waxay ku soo korisay umbu ka hadlaya iyo wixii la soo siiyo calooshiisa galay abwaan looma jawaabayo hafriq leeyo waxaan ku noqday absolutely waxaan ku noqday professional PhD holder baan ka qaatay lama hadlo ha iska firq leeyaan ha ooyaan jinka sidiisaan u cuudinayna hadalka yaga dhibaye ha hadla marka waxaan rabaa inaan ku sheego waxayba la soo taagan yihiinba waxaan u baahanahay xildhibaanadii inaan la kulanno oo laaluush siino waaba ku soo indhacad yihiinba waxaan rabnaa aeroboortka in laga qaado maxaan ku dhahayeeto isbaarada oo nala baarin waxay rabaan lacagtii imaaraadka inay soo gashaan macnihii magaaladii bay rabaan inay lacagtii meel walba la galaan ciidamadii bay leeyihiin wixii xamar ay ku hayeen bay dhuusamareebna la tageen ruufiyaanimadii xildhibaanada rabnaa inaan la kulano xildhibaanada maxaad kala kulmaysaa xildhibaanada hool ku ballamayo ka hor sheeg waxaad sheegaysiin wixii campaign macnihii waa laaluush baan bixinayaa oo aeroboortka laaluush baan kala soo degayaa la iga wareego cad oo aan caad saarnayn waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iideysto waan u sheego shacabka galmudug waad arkayseen lacagtii lagu dhisayay caasimadaha maamul goboleedka xildhibaan fiqi iyo odawaa iyo sanatarro kale iyo dad kaleba waxa ay oo galmudug ku metela golaha shacabka waxay ahayd inay kala shaqeeyaan wasiirka maaliyadda iyo wasiirka howlaha guud ee guryeynta oo ay miisaaniyadda ugu soo daraan galmudug caasimadeeda waxyaabihii lagu dhislaa laakiin aad baan uga xumay unfortunately waxay kaga mashquuleen xildhibaan fiqi iyo odawaa waxay kaga mashquuleen diyaarad baa la celiyay diyaarad baa la joojiyay qof baa la dhiibay ma garanaysa iyo inay lacagtaa qaybiyaan haddana waxay ku mashquulsan yihiin inay lacagtaa qaybiyaan waaba ku soo indha adag yihiinba waxaa maqli jire naagtii heblahayd kaa indha adag kaa laaluush aan bixiyo cad weeye aeroboortka ha laga qaado yaa nala baarin maxaan ku dhahaa jidadka ha la furo xildhibaanada aan la kulanno maxaa ku dhacay garaadkii wuu ku soo laabanayaa baan u malaynayaa macnihii waa indha adayg absolutely cad weeye aad iyo aad baan idiin salaamaya dadka i salaamayay sababtoo awiil baa qadka ku jiro hadlaayay ma hadli karin oo haddaan idin salaamo ma ka dhex geli karin hadalka haddii kale waxay noqonaysaa buuq aad iyo aad baan idiin salaamaya wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantii intay salaamaysa malaa'ig ha idin salaamto cabdinuur sheekh cabdullaahi maxaan ku dhaha aad baa kuu salaamaya ogaas dhammaantiin waa idin salaamaya dadkan maxaan ku dhahayeeto dhibaatadu haysato nahallahba hadlinina haddaad la hadashiin
adinkaaba ka liitaba hadda waa anigii idin lahaa futa dhagax iyo hebel dhagax iyo maskax dhagax iyo jaajuusiinta ha u jawaabinina ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad tirahdaan caradiina la dhinta kuwaan caytamayana Facebook anigu 7 sanaan waxaan ku soo jiray live so waxa faanteen maaha live kaas aan ku soo jiray waqti waxa jiray aan kuwaan u jawaabi jiray waxaan u qabi jiray dad nool laakiin ma ahan dad nool waa dad dhintay oo laakiin socda waa socdaan laakiin waxay isku qabaan ayagu inay nool yihiin way dhinteen sababta qoraaladooda aad ka fahmaysaa ma fahmaysaa dad nolosha waxa weeye nool laakiin dhintay jimsiyan bay u nool yihiin akhlaaq dad aan akhlaaq xoolo xalaal laguma soo korin xaraan bay ku soo koreen haday rabaan kufsi bay iskaga dhasheen maya ma si sheeg karnay wala daaleena marka waxaan u baahanahay dadka waxaan idinka codsanayaa Soomaaliyeed xalaasha ah waxaan idinka codsanayaa absolutely ha u jawaabinina waxa weeye say ama wax u soo qorayo oo wax u soo qorayo oo hooyadiis buu ka sheekeynaya akhlaaqdiisu ka sheekeynaya gurigii lagu soo koriyay xooluhu lagu soo quudiyo ka sheekeynaya adinku daawada arintaasna waxaan ka bartay daahir socdaal halkaan baan uga jeedaa islow daahir socdaal aad iyo aad baan ku salaamayaa islow akhlaaqdooda iyo hooyadood bay nooga sheekeynayaan iyo gurigooda iyo cuntadii la soo siinay marka ha u jawaabinina halkaas uu idinku soo qoraya buug dhan oo wuxuu yahay buu idinku soo qoraya ama naagtu waxay tahay aad iyo aad baan idin wada salaamaya mar labaad waxaan rabaa marka nimanka galmudug meesha la dhaha jooga adeer macaan anagu maxaan ku dhahay waxaan qarsanayna ma aha anagu ma qarsano inaanu rabno dawladnimo Soomaaliyeed nin la shaqeynaya ma fahmaysaa oo inuu galmudug madaxweyne ka noqdo anagu waxaan qarsanayna ma aha daamajadiidna inaan diidanahay anagu waxaan qarsanayna ma aha daamajadiid galmudug hadduu ka soo baxo waa Soomaaliya guduntay weeye waa Soomaaliya la qabsaday weeye waa Soomaaliya oo daamajadiid iyo aala islaax iyo maxaan ku dhahay badgad iyo dumargad iyo dadgad iyo maxaan ku dhahay tuunahaye iyo bilaqaysanhaye iyo isbaarayste xisbiyadii damkasi adeer anagu uma rabno warcad soo warkaas warcad ma aha laakiin adigu waa dadaalaysan adeer shacabka Soomaaliyeed iyo maxaan ku dhahay dawladooda isku duuban sida jinka loola dagaalo oo loogu akhriyo quraanka idinku akhrinayaan faraha iyo cidiyaha iyo madaxaanu idinku la dagaalayna marka ama ooya ama dhaha maxaan ku dhahay indha adayg la soo istaaga laaluush baa rabnay inaan bixinay xildhibaanadii galmudug hana la tuso ama ooya ama wadooyinka hana loo safro aan maxaan ku dhahay xaafadaha galnay dhahaya adeer macaan wadooyinkan hortiinaa la ilaalinayay dad badan oo muhiim ah jooga dhuusamareeb dhibaatadaad xamar ku hayseen hala imaanina badgad dumargad dadgad takadagad balaaye iyo baas qaa'inul wadan jaajuus adeer macaan farda la isugu jooga maxaa la isaga faanin buu yiri soo diyaar garooba haddaad rabtaan xildhibaanada inaad la hadashaana adeer macaan hool kreysta hoolkaas ay idinku imaanayaan almiidaan waasa maxaa shacabka loo tabeeyo yiraahdaan wax ku jirin adeer macaan guri intaad la gasho xoogaa laaluusha adeer macaan tu xildhibaanada waa xildhibaano laga soo shaqeeyay ma fahmaysaa badgad dumargad diingad noocoodo kala keena anagu haddaanu nahay nabad iyo nolol iyo shacabka Soomaaliyeed ee xalaasha ay isku duban 99% ee walibana shacabka reer galmudug badan anagu ma keeno wax laaluush qaatay iyo qurun iyo baqti iyo diin la'aan ma keeno qof walbana suu yaal dad u yaal bay keena marka hal sano ku dhawaad oo dadaalay nabad iyo nolol ku bixis oo dib u heshiisiina oo dhibaato ah oo dhidid ah ma ciyaar baad moodayseen xasan qayrwada markuu lahaa galmudugay ma nabadba sharaftii adduunkay ma nabadba cawdaaqay meeshii ciidda gaduudnayday ma nabadba guura bahalayntii iyo madaxweynuhu markuu maxaan ku dhahay marna halka u sii jiiraya marna halka u soo jiiraya adeer macaan rag baa meeshan xaniiyaha dul dhigtay ma fahmaysaa markaad adinku marna imaaraadka ka soo qaraabaneyseen marna aad Kenya ka soo qaraabaneyseen waxa weeye nabad iyo nolol iyo shacbigeeda isku duuban waxa weeye meeshaas bay jilbaha dhigteen marka farda la isugu joogo maxaa la isaga faanin afcad weeye ninkii ku yiraahdo waa kula dagaalayaa ku qaraya waxa weeye waa ku qaraya anagu sideeda bila aadanba waxaan rabnaa warkayagu waa cadiyaa nabad iyo nolol waxay rabtaa
iyo shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leheen badgad diingad dumargad ahayn waxay u baahan tahay maamul goboleed muqdishaysan nod maamul goboleed imaaradaysan maamul goboleed dawladda Soomaaliya hoostaga aaminsan in ay xukunto dawladda Soomaaliya maamul goboleed la shaqeynaya dawladda Soomaaliya dhamaantood lixda maamul goboleed oo Soomaaliya ka dhisan ee jamhadaha ah hadda inta hadda maxaan ku dhahay wanaajinay ma inta kala jamhadaha dhamaan waxaan rabnaa wadada cad inaan saas ugu ridno daahir socdaal maalintii dhaweyta ma aqaan maxaan ku dhahay ta islow inaan kuu soo diray WhatsApp-kayga marka haddii aad WhatsApp-kayga haysid isoo wac sidaad wax ugu darsatid marka waxaan u baahanahay aan sii wadee taasa u baahanaa warkayguna waa war cad war qarsoon ma aha intaas waa intaas waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada galmudug dhamaantood waxaan ugu baaqayaa adeer macaantu waxaan maqli jiray gabadhaadu iyo wiilkaagu maalin bay hiilkaaga baahan waa maalintaad hooyadood guursanaysid ma fahmaysaa waxa meesha iskugu yimid waa taqaanaa waa nimankii daabajadiid dalgad badgad diingad dumargad kufsade cunaaye bilqayste wixii weeye niman idin cusub ma aha soo waxa garateen ma aha iyo nabad iyo nolol baa meesha ku hardamaya hadaa dadkiina aad rabtaan inaad u hiilisaan nabad iyo nolol bay idin la rabtaa baraaray idin la rabtaa dawladnimo idin la rabtaa qarannimo idin la rabtaa qofka ayada ay isla shaqayn karaan ee aad isleedihiin adinka iska kaayo oga kulleey intaas aad isla joogteen oo isla soo dhacayseen oo isla soo jabayseen waxa weeye doortaan idin leeyahay waxaan kaleeto aan rabaa inaan iraahdo intaas markaan iraahdo aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin aad iyo aad baan idin salaamayaa Soomaaliya ha noolaato waa idin salaamayaa dadka islaamaya guul iyo gobonnimo Soomaaliya ha noolaato may adiga shacni waa naaka war ya kolley waxa weeye magac waxaas aad soo qortay waxa weeye xaalkaagu caadi ma aha ya buush isbaaraa baa lagu dhala midan waa mid dhimatay oo ceeb reebtay ya buush isbaaraa baa lagu dhala ya dhilla kute ilaahay cadaabti ku geey waa waray aad iyo aad baan kuu salaamayaa waa ku salaamayaa waa kaa qaadayaa mid lamida oo kasii sareysto dalaan sare gudoomiye halgamaa sare taariikhda ayaa ku xusi doonta bashaaro qalin aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cumar Siyaad labada arrimood baan ka hadlaynay arinta galmudug iyo arinta maxaan ku dhaw kulay arinta galmudug baan ka hadlaynay in loo campaign gareeyo qofkii xildhibaankiisa yaqaan xildhibaankiisa uu la hadlo kulay insha Allah ta'ala wa ay noqonaysaa sidaan rabnay noqonaysaa qofkii uu oday kule meesha odaygiisa inuu la hadlo qofkii saaxiib kule xildhibaanada saaxiibadiisa inuu la hadlo waa in maxaan ku dhahay galmudug waa ubucdii Soomaaliya waa bartamihii Soomaaliya hadii ay istaagto oo qarannimada Soomaaliya laga yagleelano Soomaaliya oo dhan way hagaagaysaa ka bacdina Jubbaland baan maxaan ku dhahay jahaysanayna oo dadka Soomaaliyeed dhiban baan rabnaa inaan maxaan ku dhahay ayagana imaaraadka iyo ka soo celino Kenya oo waxaan rabnaa inaan halka u jahayno marka arintaasna waa ka hadlayay waxaan kale oo rabay inaan ka hadlo Soomaaliya reemiga sida u nool yihiin in maxaan ku dhahaa laga bedelo oo dhaqaalaha Soomaaliya xoolaha nool bay ku xiran yihiin dawladii kasto timaada hadii ay maxaan ku dhahay dadkii soo qaxay ee beeralayda ahaa magaalooyinka waaweyn ku kala fiirsan iyo reer miyiga wasaaradda qorsheynta biyaha iyo maxaan ku dhahay macdanta haday maalin maxaan ku dhahay dawlad walba ay maxaan ku dhahay intay awoodo xoolo dhaqata beeralay ay ka dhigaan oo motor yar inta loo qodo 50kii reer ama 100kii reerba meel la dajiyo beerahooda iyo cuntadii dalagii uu cuni lahaa loo beero maxaan ku dhahay 50ka reer motorkooda loo qodo meel walba waa biyo Soomaaliya xoolihiina maxaan ku dhahay
cuntaday cuni lahaayeen loo beero dadkana xataa maxaan ku dhahay cuntada ayagu cun lahaayeen masagadii iyo galeydii iyo ay maxaan ku dhahay intay quudan lahaayeen waxba yeeba gadane ay beertaan intaas maxaan ku dhahay dawladii walbaba haday 3,000 oo reer ay dejiso ama 2,000 oo reer ilaa hay'ada caawinayo adduunka caawinayo ayadu haday bilowdee waana wax yar oo la sameyn karo sababtoo ah hadda reemiyiga iyaga xoolaha sidaan ay u dhaqayaan waa sidii 1960kii loo dhaqi jiray haday sii socotana xooluhu way baaba'ayaan nolosheeduna waxay ku tiirsantaa xoolaha marka arintaasan ka fakarayay oo rabayna inaan dhaho oo adigana aad rabtid wixii ra'yigeena ku soo dirtay iyo arintan kale horta mid waa ku hormaraya midda dambana waa ku hormaraya midda dambana waa mid waxa ku hormaraya midda sambalolshe iyo intii qalbi dhagax ahaa horta gudoomiye Cabdi Xaashi codka hadaa dheerayn kadid ugaas codka hadaa dheerayn kadid codka ku dar hadaa dheerayn kadid codka adoo raali ah haddana ka warjay naqasha هذا أوكي واي ميكروفون كأفك ونكسو دوي وحاجر تو نيك هذا عبد الحاشي أنا ما وعلى نهضة كل راح لنا وأري الصوماليات وأري مارك من الصوماليات عندنا كأقاني لكن أنا أريد أودر كسر كريجي أريد أقول الصوت هاي واي أنت أصدقائي وغا ما أنت كتر نت باجتين وصوب الدقيقة بكر صح لكن هذا وحي عاطر احترام ولغا مدن yahay waa oday Soomaaliyeed waa oday midnimada Soomaaliyeed عليه شرفت maxaan ku raahdaa qiyaamadii dawladdaas la rabay siiwad uga siiwad waxaan soo qaadayaa batariga siiwad ay dhibaatadii iyo shacabkii la rabay dawladdeennana Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo boodiyay mid kale oo dhaqaalaha iyo beeraha iyo horta dadkeenu aad bay aragtay marna activity u yihiin marna u yihiin khayraadka dhulkooda aan Ilaahay u tusin ayagoo caana geel yallo iyo ari haysto ayay caana boora dibad ka dalbadan maalintan qatarnay maalintaas dhulkeenu beerahana uu dehan yahay darin uu yahay biyaha meel kasta ay marayaan hadday investment rabaan dawladii hore waa ku dadaaleen laakiin dadkeenu dibadaha ay ka jecel yihiin waxa dalkooda ka baxa ma garan laakiin insha Allah waxaan malaynayaa dad badan oo experience oo faa'iido iyo experience ka soo helay in adduunyadan inay maanta dalka dib ugu soo laabanayaan oo ay ka sameyn doonaan waxyaabaha ay adduunyada ku soo arkeen insha Allah taas waxay noqon doontaa wacyigelin dadka wax soo faa'iideen qaybaha ay adduunyada intay tagay ka soo faa'iideen laakiin dadkeena gudaha degan ma dareensanayn mana dareemayaan weligood ilaa dad wax soo arkay u yimaadaan midaan galmudug markaa ku soo dhaadhaco galmudug hortaro dhalinyarada maanta waa u hambalyeynaya laakiin waxaan u sheegayaa dawladii iyo shacabkii inay iswataan waad aragtay cadaado sida madaxweynaha looga mudaaharaado lagu soo dhaweeyey oo la yiri wax alla wax ka soo jeeda farmaajo ma rabo dhulmasamareeb shacabkeedu waa u jeedaa sankay ka haystaan daamul jadiid iyo maxaa la yidhaahdaa wixii soo raaxo oo dhan oo soo raaco gaalkacyo waa u jeedaa sida looga damaashaaday عبد واقي ملك مقنا وابقوني ملك مقنا وابقوني بلا كانوا كل محنج على dadkii shacabka iyo dawladda federaalku waa is wataan kullay ayaga ku quruxdoonta waa wiilal dhalinyaro activity dadka ay sanka ka qabsanayaan ma keenay doonaan oo malaynaaya talo uma baahna waxay dhex joogaan caasimada dhuusamareebeed oo aanan laga rabin oo sanka laga haysto daamuljiid iyo gurubko uma keeni doonaan nin damboo lugooya oo shisheeye amar ka qaatay imaarada shaqeeya dadka shacabka ee galmudug degan waxay rabaan wax u shaqeeyo oo hobyo u dhiso وانا لو بلن قاده حفظه الله محمد عبد الله فرماجو وبلن قاده وانا ودسايا hadday horumarkooda helaan waxyaalaha ugu weyn oo hadda ay imaarad ay xoog u saarayso doorashada galmudug waxa weeye oo boosaaso labadii nin oo ajantiga u ahayd ay ugu kulmeen oo macnaheedu ay dagaalka xun u soo qaadeen waxa weeye takadaas hobyo inaan la dhisin listen sababtoo ah takada hobyo waa istiraatiiji takadaha golofka cadmeed iyo badda cas iyo gidi dhammaan takadaha istiraatiijiga ay oo dhan ilaa bariga bogtiisa
ilaa afrikada dhexe ayay isku xir u tahay ma garatay laakiin dadkii shacabka ahaa maanta way fahmeen maslaxadooday fahmeen ma fahamtay waa kuwa xaafna dhaaf dhaxay waa kuwa bannaan baxay cadaado waad aragtay ayadoo madaxweynaha maalintuu joogay sida loogu damaashaaday waa mudaharaadina dheen caasimada rabda waad aragtay dhuusamareeb sankaa laga haystaa daawul jadiid kolley uma keeni doonaan inaysan shacabkaasi rabin because dadku shacabka ahi nolol bay rabaan noloshiina waxaa u bidhaamiyey labadaa ninaa u bidhaamisay oo xaqa u marsiisay waxay u jeedaan danahooda afar qofood oo jeebka lacag ku shubato dantooda ma ahan kolley uma malaynayo xildhibaanada hadda la keenay waa xildhibaano sharaf badan waa xildhibaano qiimo badan waa ciyaal iyo dhir u badan yihiin oo wax bartay u malayn maayo inay saqajaamiin iyo dalka ku fashilmay horay ay u keeni doonaan because waxaa lagu leeyahay magaalooyinka dhan sankaa laga haystaa wax dhan oo dowladda kasoo horjeeda sankaa laga haystaa daamul jadiid waxaan hore usoo baranay saqiir daamul jadiid iyo waxaan hore usoo baranaa haddeertaa rabo inay dad kale seekadhin bal waxaan ku weydiinaa bishaaro su-aal yar waay adigu marka aad sharaxan tahay ood murashax tahay ma inaad kaambeyn garaysaa mise inaad bila soomaaliya la murantaa waa inaad ku maya ayaga waxa weeye siday fiiri nimankan waxyaalaha ugu badan oo la qaracmeen laba waxyaalood weeye kow weligood may ku tashan ayaga iyo nimanka jaajuusiinta ay u yihiinba inay ummadda Soomaaliyeed madax ay saa u taageerayso oo ay ku midoobayso ay helayaan taa horta way ka qaracmeen qalbi jabna way ku noqotay tan labaad siyaasadii 30 sano ay yaqaaneen ee ahayd ka dhiso ka maxaan ku dhahay tacoodo ka maxaan ku dhahay isku dir dil oo dhac oo ka taajir wixii bay nimankan way yaabeen marka isma lahayn sidaas fudud niman aba imaanaya waxan ba imaan wixii bay filan laayiin marka way isku dhaxiyaaceen waxay ku leeyihiin indha cad oo har cad bay waxay la soo taagayiin saqiirkii daamijada wuxuu ku leeyahay hal furo wadooyinka oo waxaan moodaa inuu gaariyaal samta ayaga dhanba bishaaro aan kaa qabsado horta shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan saan kuma imaanin lagama shaqaysanina waa loo shaqeeyay go mas bointu waa kaas shacabkuna wax u shaqeeyay rabamoogi wax ka shaqaysta ma rabin nimankan mushaarka ay qaataan ayay ku shaqeeyaan hanti ay dalka mid dibadda ka timaadan inay dadkooda uga faa'iideeyaan bas dadka saasi ku nimankan waxa weeye waxay la waasheen oo xishoodka ayagu waxaana doolaraad la dhiibaa waa lagu soo baxaa waxaan in kaambeenkaba uba yaqaanaaba doolaraa la dhibaa oo lagu soo baxaa siyaasad kaleba ma yaqaanaan de siyaasad kaleba ma yaqaanaan waxaasaan qabtay ama listen adduun hanaloo furay iyo dalka dowlada ka waxaasaan qabtay backgroundkaas quruxda badan baan leeyahay waxaasaan dadka u qabanayaa hadda ka hor waxaasaan kuu qabtay de waxay ku campaign gareeyaan ma hayaan siyaasadda noocay ka barteenna waxay ahayd lacagtaan hoo iyo maxaan ku dhahay dooro intaasay ka barteen siyaasad kale ma yaqaanaan waana dadka aad aragtay ayaa magac u bixiyey shilinka hoo shaftakeen sidii ay u maleeyaan dalkii dhan baynay ayaguna sidii la soo yiri ayay dalkii iyo dadka u maleeyaan xildhibaanadii iyo maxaan ku dhahdaa xildhibaanadii maanta jooga sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay maslaxadda gobolka fiiriyaan dadka shacabka waa u jeedaan siday dowladnimo u rabaan waxaan ka codsanayaa madaxtaanig inay doolarka xataa ka dishaan laakiin maslaxadda dalka fiiriyaan xaaraan dhaliga qaadan sababtoo guri xaaraan lagu dhisay faa'iido male aad iyo aad baan kuu salaamayaa ogaas aad iyo aad baan kuu salaamayaa guulayso waxaan leeyahay xaaraan ha qaadanina mushaarkiina idinku filan tikadiina markii la idin dhisaa idinku filan ganacsatadu markay maxaan ku dhahaa timaada meesha cusbada oo ay warshada keensataa idinku filan xildhibaanada galmudugow waxa weeye dawladdiina idin garab istaagaysa galmudug baa la isku furayaa canshuurta laga qaadayaa barwaaqaad helaysaan oo afkaad miida daraysaane xaaraan ha isku cunina haddaad xaaraan cuntaan waa gubanaynaaye ololkaas ha gelinina dadka saasaa idin leeyahay xataa intaad maxaan ku dhahaa ka qaadataan ha ka codanina ilaahay baa idin siinaya mid ka fiican oo xalaala idin soo gelinaya waxaan kaloo leeyahay markaan anigu lahaa arrinta maxaan ku dhahaa aan ka hadlaayay
reer miyiga xoolihii way sii dabargo-ayaan 24 saac waxa weeye waxa batay xaalufkiiba batay Soomaaliya xaalufkii waxa weeye waxaad arkaysaa reer 100 geela lahaa ama maxaan ku dhahaa 2,000 oo ari lahaa oo maxaan ku dhahaa sanad kadib haysta 3 neef oo ari dhaqaalaha iyagana waa ogtiin Soomaaliya wuxuu ku tiirsan yahay waxa weeye waa xoolaha nool buu ku tiirsan yahay ma fahmaysaa marka qorshayn maxaa loo yiri fiiri maxamed siyaad bare Allah u naxariisto markuu 69 wadanka qabsanayay wuxuu u yimid wadankii oo musuq ah boobarata ah hal iskuul oo lacag la'aan jirin maxaan ku dhahay to isku dhaxyaacsan maxaan ku dhahay corruption ah eberkiisoo sagxada yaal maxaa la sameeyay oo 4 sano gudahood loogu sameeyay intaasoo jaamacadood hadda taariikhda ku noqotaan kacaankii 4 sano kaliya wuxuu ku sameeyay intaasoo jaamacadood intaasoo iskuul lacag militarigu ku wateen jeebkana ma jirin waxay sameeyeen leadership hagid baa loo baahan yahay dajin iyo qorshayn marka ma ahan inay dawladdu lacag tiro badan haysato hadii waxa reemiyiga way dajin kartaa mideeda kale halkii dawladda markaas timaado ama 8 sano joogto ama 4 sano joogto ma aha dawladii timaadaba haday sii wado waxa la qorsheeyaa 50 sano soo socda 20 sano soo socda laakiin anigu uma malayn ma 20 sano inay ku qaadanayso waxay la tahay 10 sano inay is qaadanaynin wiil ba halka wuxuu igu soo qoray in maxaan ku dhahaayeeto hadii wuxuu yiri nabadgelyada ka horeysa waxa ii soo qoray sharmaarke ba ii soo qoray sharmaake waxa weeye ba ii soo qoray haduu jooga ma aqaane waxa jira dhulka badan xoololeyda ah meelaha inta badan meelaha ay joogaan nimankan al-shayaadiin waa dhulka beeraleyda ah marka waxa aan rabnaba in la sameeyo waa reemiyigana al-shabaab lama joogto dhulka sool dhulka sanaag maxaan ku dhahay togdheer awdal walibana awdal lo'da iyo dhaqdaan inta badan waa beeraley soo waxa faantay ma aha maxaan ku dhahay dhulkan maxaan ku dhahay togdheer dhulkan mudug galgaduud ilaahay kuma danugaal bariga xataa intiisa badan waa xoolo dhaqato waana nabad baadiyihiisu al-shabaab iyo al-shaydaan midna ma joogto ma fahmaysaa insha Allah inta yartaay ay joogaan waa la nadiifinayaa laakiin waxa weeye bilow fiican bay noqon lahayd dawlad walbaba dhowr kun oo reer miyi ah haday ka dhigto xoolo dhaqato beeraley ay ka dhigto ma fahmaysaa wayna la isku tashan lahaa waxa weeye markii dawladda kacaanka ay dhisaysay intaasoo iskuul intaasoo wadooyin intaasoo iskuul farsamo gacan ma ahayn lacag inay haysatay dadkii bay jahaysay dadka gacmahooda ku dhisteen hadii marka leadership iyo jahayn iyo qorsheyn loo sameeyo reemiyiga ayaga xoolahoodayba kala bixilaayeen oo beeraha lagu sameyn lahaayo xoogooda laga faa'iideysan lahaayo xagaaf lagu marin lahaa meeshii maxaan ku dhahay cayshkii iyo wixii ay xooluhu cuni lahaayeen lagu beeri lahaa iyo maxaan ku dhahay meeshii cuntada ayagu cunayaan loo beeri lahaa matoorkaas yarkaana waa hay'adaaba bixinayaba matoorka yarka ah hay'adaa bixinaya warna ayagaaba lagu qodi lahaaba boqolkii reerba inta isku meel la dajiya la dhihi lahaa 6 bilood war intaas la ku qoda dhowr cagafna waa loo keeni lahaa oo xagaafka ku sameeyaan ilaa 6 qof oo boqolkii reerba waxa loo keeni lahaa ama 5 qof oo barta sida wax loo beerto oo nolosha loo samaysto oo maxaan ku dhahayeeto beeraha ila dadka reemihi bay ahaayeen oo dalagga xooluhu ay ku noolaadaana loo sameeyo ayagoo reer baadiye ah oo xoolahoodii baadiye ku haysta bay haddana xoolo dhaqato beeraley noqon lahaayeen adduunku hadda wuu ka tegay xoolo la daba joogo Soomaaliya anigu waa tegay hilibka xataa xoolaha Soomaaliya lama cuni karo waa tahar weeye say xooluhu u socdeen bay waxay noqdeen way angageen marka waxa loo baahan yahay in maadaama aan nahay dad annaga aad iyo aad baa idin salaamaya dhamaantii waa idin salaamaya maadaama aan nahay dad ku nool xoolaha oo Soomaalidu haddaan nahay boqolkiiba 65 baa la dhihi karaa waa reemiyi waxa annaga ay ku tiirsan tahay
aad uma kalluunka uma isticmaalno mana dhoofino mana cunno hadda run la rabo waxyaalaha ugu badan oo isticmaalno oo hadda maxaan ku dhahay aad iyo aad abaarihii u soo noqnoqdeen oo dawlad la'aantii iyo dhibaatadii dhacday ay maxaan ku dhahay ka mas'uulka tahay waxay tahay abaarihii iyo xaalufintii iyo dhirtii oo la jaray iyo cimiladii oo isbedeshay xoolaha iyagu way sii dabargo'ayaan sababta amaanin dhaweyd aad baan u naxay program baan daawaday waxaan arkay reer sanadkii hore 2,000 oo ariya haystay oo iyo maxaan ku dhahay intaasoo geel ah oo 3 neef 10 neef ku soo hartay marka haddii aan qorshe loo samayn xoolaha oo maxaan ku dhahay to walibana aan xoogga la saarin on qorshe loo samayn oo la liid garayn reemiga waxa weeye ayagaa soo saari lahaa xoolaha haddii xoolo dhaqato beeraley laga dhigo oo rooba maalin laguma dhisina la bilaabo oo maxaan ku dhahay to reemiga loo sameeyo nolol ay ku degaan oo baadiyihiina ah beerihii sanadka maxaan ku dhahay to abaartu jirto ama ay diraacdu jirto ay xoolahooda cuni lahaayeen loo beero dalagii oo galoolkii laga beero oo jilabkii laga beero oo maxaan ku dhahay to xoolihii loo beero boqolkii reerba intii ku filan xoolahooda iyo waa la isku jeegoynaya ma fahmaysaa matoorna meesha looga qodayaa Soomaaliya gidiga dhulka Soomaaliya wabi baa hoos mara waa wada maxaan ku dhahay to wabi marka matoor yar baa laga qodayaa waxa matoor baa rabaa inaan qoto waa gabigiisaba waa $3,000 baa la igu yiri $3,500 ma fahmaysaa matoorkii un baad soo gadanaysaa maxaan ku dhahay shidaalna looba baahno dhulka iyagu waa barwaaqo oo solar baa looga dhigaya maxaan ku dhahay solar baa korontada laga dhalinaya maba loo baahnaba shidaal in lagu shubo marka qorshe u baahan yihiin oo qorshahaas in la dejiyo u baahan yihiin dawlad kasta oo timaado Soomaaliyana waxa fiican inay wasiirkeeda qorsheynta iyo wasiirkeeda biyaha iyo maxaan ku dhahay reemiga iyo dhirta iyo daaqa inay ku haystaan si ay dadka maxaan ku dhahay xoolo dhaqatada ah maxaan ku dhahay loo dejin lahaa oo dibdejin loogu sameyn lahaa xoolo dhaqatar looga dhigi lahaa beeraley waa muhiim weeye adduunka hadda waa laga baa xoolo la daba joogo baqtiyo oo dadku ku dhintaan maxay tahay anagoo xoolahaas leh oo dhulkaas hodankaayo aan meelna beernayno dhul waxa arkaysaa markaas socoto cidnaba deganayno oo iska banaan dadkaygu inuu gaajo u dhinto sanadna gaajo u dhinto sanadna maxaan ku dhahay roobkii doo biyihii aan la qaban matoore aan la qodin xataa haddaan biyihii la qaban oo dadkii aan la dejin oon dalagii xooluhu ku noolaan lahaa loo beerin ayaga xataa masagadii bay beeran karaan haddii beerta loo sameeyo maxaan ku dhahay matoorkaas oo 4 beerood boqolkii reerba loo sameeyo oo labana ay tahay cuntadii ay ku cuni lahaayeen meeshaas labana ay maxaan ku dhahay to dalagii beeraha tahay xoolaha tahay xoolahaas ay haystaan xooluhuna way tarmi lahaayeen oo markaas canshuur bayba ka bixin lahaayeen matoorkooda iyo maxaan ku dhahay ninkaas matoorka markaas ka shaqeynaya iyo dadka beeraha maxaan ku dhahay inkastoo beeraha la raba ayagu inay ka shaqeystaan oo aan loo baahnayn in loo shaqeeyo dadka Soomaaliyeed waa in la baro inay shaqeystaan oo sida loo shaqeysto la baraa sida adduumayadan aan joogno inay wax soo saar yeeshaan oo shaqeystaan oo xoolahan la iska daba joogo sidii loo daba joogo abaartu markay timaado dhamaanaya qofkiina dhimanayo waa wax aad iyo aad looga naxo labada ayadoo la joogo qarniga 20aad inay xoolihii dhintaan oo dadkiina la dhinto waa macnihii waxaan joognaa adduunku markuu joogo 1920 baan joognaa saan u dhaqmayno intaas waa intaas insha Allah ta'ala arintaas inaad u oleysaan baan aad u rabi lahaa aad iyo aad inaad u oleysaan sababtoo ah aad iyo aad bay ugu jirto muhiim u tahay xoolaha dadka xoolo dhaqatada dhulkoodu waa nabad sharmaaka ay soo weydiiyay xoolo dhaqatadu waa mudug galgaduud togdheer meesha la yiraahdo magaceeda iyo nugaal iyo bari xoolo dhaqatadu waa intaas dhulkan kaleeto iyo gado dhulka gado oo aan maxaan ku dhahay to aan wabigu marin xataa reer gadaha wabigu maro waa in wabiga loo soo dhaweeyo oo xoolo dhaqatada ah oo ayagana xoolo dhaqata beeraley dhinacaas laga dhigo oo ayagaaba wabi haysta wabi in la maalgeliyo u baahan yihiin kaliya matoor loo saaro dadkii
boqol reer xataa dadka in la tiro koobo dadka nabadooda la ilaaliyo way fududaanaysaa markaas waxyaalo badan baa fududaanaya xoolihii in la daaweeyaa fududaanaysa sababtoo ah reer walba meel baad ku ogtaa hadda boqol reer baa waxay kala degan yihiin meel 6 saacadood oo loo kala socdo ma fahmaysaa dadkii baa xataa tirakoobkoodii la ogaanayaa nabadoodii baa la sugi karaa laakiin waxaan noloshaan hadda Soomaaliya oo ku jirto wallaahi dawladaha dariska fiirsha hadda wax ku nool mala 1920 baa lagu noolaan jira noloshaas ma fahmaysaa marka arintan waxaan rabaa inaan ku soo laabto galmudug nimankan qaylinaya waa niman aan xishoonayn aad iyo arbaan shafka daahir ku salaamaya sharka inuu yahay baan u malaynaya nimankan qaylinaya qofku haduusan ilaahay ka baqaynin xasan baa lagu dhalay xaraan waa lagu soo koriyay eeyahow axmed kaas ninka la leeyahay waa run axmed awil miya ilaa baadiye ilaa baadiye ma ninkaas miyaa axmed awil wata miyaa ya ninkaas miyaa ninka maxaan ku dhahaayeeto gurigoodii nooga sheekaynaya caawo dhan iyo hooyadiis iyo walaalihiis iyo noloshii lagu soo koriyay ninka meeshaas kaga sheekaynaya dadkaas tirada badan oo meesha jooga ma ninkaasa aan blog naga saare axmed awil ninka wata hirsi ninka wata codka waa Soomaaliya ma ayba waxaan shaqadaadii maaha xoolahan okay waxaan rabaa inaan bologo ina abaarso iga raalle ahow gurigiini aad eedaad hooyo aad walaasha aad kuwaas waxaas kugu soo abaabiyay anigu walaalahay wiilal ah oo ka waaweynaa baa jiray oo soo xambaari jiray oo soo abaabiyay waxaan dhihi jiray oo bari jiray sida hooyadiis oo kale aan u abaabin jiray dadka ka waaweyn waa la xushmeeyaa gabdhaha war gabar lama hadlo war gabdhaha waa la xushmeeyaa war akhlaaq yeelo war rasbiga war sidii nin raga saas baa loo abaabin jiray laakiin kan darbigu ku dhashay wuxuu ka og yahay maxaan ku dhaar nolol darbigu ku dhashay ama islaan iyo xaalka marka waxaan u baahanahay dadka reer galmudug waa ay caddahay warkoodu laakiin nimankan aan xishoonayn oo gariiraya oo ilaahayna aan ka baqaynin adoomadiisana aan ka baqaynin mideeda kale aan xishoonaynin sababtoo qofku hadduu xaaraan cuno hadduu qaa'inul wadan yahay hadduusan kaa baqaynin ilaahayna uusan ka baqaynin qofku waa labo hadduusan ilaahay ka baqaynin oo uu yahay mujrim waa inuu dadka ka baqaa aad iyo aad baan kuu salaamayaa maryan cumar aad iyo aad baan kuu salaamayaa qaali firdowsaan u jeedaa firdowso aad iyo aad baan kuu salaamayaa walaasha qaaliya fartuun isku filan aad iyo aad baan kuu salaamayaa marka nimankaas horarka ah maxaan ku dhahaye takadahayagii takadii barbara saxiixay daama jadiid iyo nimankii la oran jiray xisbigii aala sheekh maxaan ku dhahay in cabdirashiid iyo xasan muxuu ahaa odaygii kale shariif badgad waad ogtihiin inay badayadii gateen maalin cad soo waxa fahamtay maaha niman hadda noo dhuumanaya ma aha waad ogtihiin inay maxaan ku dhahay takadii barbara saxiixeen maalin cad oo la isku tuurtuuray waad ogtiin takadii boosaasa inay maalin cad saxiixeen oo la isku tuurtuuray waad ogtiin badayadii inay gateen maalin cad reer galmudugow waad ogtiin shalayta inay idin kala qoqobeen oo gaalkacyo iyo maxaan ku dhaha koonfurteeda iyo maxaan ku dhaha waqooyigeeda ay hub iskugu dhiibeen waad ogtihiin maxaan ku dhahay to inay cawdaaq iyo maxaan ku dhaha cadaado hub iskugu dhiibeen waad ogtihiin inay dhuusamareeb iyo balanballe hub isugu dhiibeen waa ogtihiin xeraale iyo huursha inay hub iskugu dhiibeen niman hadda idin cusub ma aha nimanku waa nimankii dhuusamareeb idinku soo weeraray waan jooga maalintii dhuusamareeb ehlu sunna wal digridaan maantayta ay calool jilicsanayaan waa kuwii xabadda wadnaha kala dhiciyeen oo wiilkii la dhihi jiray cali madaxweyne miyuu ahaa asagoo dhaawaca uu qaban jiray sheekh shaakir
ما فهميسا وكوي شليت بيرك حبدا كلا دعيين وكوي دتكاسي لبلبدا isugu dirayeen وكوي بدهودي تكدهودي قتay وكوي gabdhahoodii dhoofiyeen وكوي ba iyo hoogay kaga yeersiyeen وكوي muqdisho kala barka gateen وكوي al-shabaab ku soo hogaamiyeen oo shalana al-shabaab ay ahaayeen maantana madaxweyne intay u noqdeen ay mid jaban iyo mid jiisa ka dhigeen oo nabad sugidda Soomaaliya oo dhan hadda iyo maxaan ku dhahayto shaqaalaha dawladda hoose ee Muqdisho iyo kii al-shabaab iyo ka kala laba kala yaqaan nimankaasana ku soo daray labadii madaxweyne iska kala dambeysay boqol hal maxaan ku dhahay qof shakhsi kuma darin dawladda cusub ee nabad iyo nolol wax allaaliyo waxa shaqaale 60,000 oo joogta dawladda hoose ee maxaan ku dhahayto ee Muqdisho waxa keenay maxaan ku dhahay Xasan Sheekh iyo waxa keenay iyo Sheekh Shariif waana ogtiin boqolkiiba 80 waa al-shabaab oo waad ogtiin wixii yariiso qarxiyay ayagay ahaayeen oo wixii maalintii dhaw la soo qabanayo dhahayay niman baan inta guursadaan shirqoola waa ayaga ma fahmaysaa nabad sugidda Soomaaliya markay yimaadeen Xasan maxaan ku dhahay Cali Khayri iyo Farmaajo boqolkiiba 75 waxay ahaayeen al-shabaab waadogaydo indhuhu xiran yihiin nimankii al-shabaab ka soo goostay bi dhamaantood askar ka wada dhigeen oo al-shabaab u shaqeynayo basaasiina ma fahmaysaa marka waxaan leeyahay reer galmudug isjira nimankaas indhaha cadeynaya ee shalayta aad ogeydeen wuxuu yiri baray daga Allah dago ninkii mar labaad dagana ana istagay ma fahmaysaa meesha idin wada waa taqaanaan waa meesha dhuxul gate iyo maxaan ku dhahay doqonkii surqaygii sina dheere ee maxaan ku dhahay jawaan la tolay ee dali la dhahayay oo ay ku shirayaan waxaana soo diray imaaraad lacagta ay u ooyayaan ay leeyihiin aeroboortka ha laga qaado yaan la baarin wixii la rabaa laga soo dajiye waa lacagta boosaas laga soo wado waa lacagta la raba in la idinku burburiyo oo 30 sano dhibaataysnaydeen oo xabad waxaan ahayn ay aan la idinka caana maaliyo qax iyo dil reer galmudug waxa weeye waxay idin faray farta dhexe iska ilaaliya nimankaas waxay xamar ku hayeen bay ku hayaan ilaa doorashadu dhamaanayso habar oday dhalinyaro wiil yar dhuusamareeb il gaar ah lagu haya nimankaas cadow weeye jaajuusiina ee cadowga u shaqeeya wax deeqaran male badihii bay gateen oo gabdhihii bay gateen oo muqdisho waxay gateen boqolkiiba 85 muqdisho waa gateen ma fahmaysaa oo takadii bay gateen wali waa soo taagan yihiin marka waxaan leeyahay reer galmudug waxba la idin ma sheegayo waxa idin faray farta dhaxaan idin leeyahay waxa idin faray farta dhexe ma fahmaysaa waxaan u baahanahay ummadda Soomaaliyeed in maxaan ku dhahay ay ka baxdo sida u nooshahay noloshii hore hadda laguma noola hal la bedelo ballanteenu waa shaqo reer miyiga Soomaaliyeed haddii inta ay qabiil isku bahaysanayaan oo qabiil isku baabi'inayaan boqolkii reerba intuu isbahaysto roobku markuu u da'o ay maxaan ku dhahay xoolahooda markay u cayilaan intay iska boqolkii reerba xoolo iska soo aruuriyaan geel iyo ariba leh ay matoor ku qotaan oo ay beera fashaan oo ay degaan xoolahoodana dalag u beertaan waxa weeye nolol bay heli lahaayeen war adunkuba bilaaba war reer miyigu taas ma garanayee war dadkiina wax bartayo oo dalkii joogo war kuwiina dabadda joogo oo access u heli kara inaad tagtaan oo nolosha yaqaano wax bartayo oo maxaan ku dhahay bartay dhaqaalaha iyo xoolaha sida loo dhaqaaleeyo iyo sida xoolaha loo dajiyo loo nooleeyo dadkana gacmo wada jir bay wax ku qabtaane dadka waxa weeye hala dajiyo dadka sida loo noolaan jiray 1920 Soomaaliya dhaqaale xumada waxa u keenay oo dukuntaakun u noqotay xoolihii baa baaba'ay sidaana looma noolo cimiladii way isbedeshay ee la iska socon jiray oo 10 sano geelu biyo meel uu ka doonto bil u sii socon jiray sheekadaasi ma soconaysa hadda walaalayaal waxa weeye adduunku wuu isbedelay technology baa la marayaa xoolaha hala dajiyo halla maxaan ku dhahay qorshaha loo sameeyo waxaan leeyahay qof walba oo caawin kara dadka oo aqoon ku caawin kara oo hay'ad u keeni kara oo maxaan ku dhahay welibana dadka ha laga bilaabo dadka soo qaxay ee meelahoodii ka soo barakacay oo nabad la'aan uga soo barakacay sidii waagii qorshihii dib u dejinta reer miyiga
ee uu u dejiyeen kacaankii ha loo dejiyo dadkan sayidka iyo hoos yaal dadka dib u dejin ha loo sameeyo xoolo iyo maxaan ku dhaha beeraha loo sameeyo dhulka al-shabaab haysata maaha dhul iska bannaan baa jira oo mudug ku yaal oo galgaduud ku yaal oo gada ku yaal oo nabad ah oo la dejin karaa jiro oo markaas xoolo inta loo sameeyo yar ayagaa iska badanaya beerana loo sameeyo dalagay cuni lahaayeenna loo sameeyo baa la samayn karaa hay-adaha iyo adduunka lala kaashan karaa dowladda Soomaaliya waxaan leeyahay arrintaas waa inay bilowdaa 10 sano soo socda 15 sano soo socda wax badan baa qabsoomaya حتى بقول كيف الله عطنا دي حول محن كنا رميجا حول نقطة بيرلي لقى دقو واحد بدن بهجاجا ينقالو كربوك أي حولون ويصاب بدن يعني حولي ويدبر قايا تذكير ودبر قايا مركي أبار كنا عضبة تذكير أون يبي قاتش دليسو تذقاتش يسكت دلي بعد أركيسا شرنا برواق كتير ولا بكونوا حالات هيستي مركي واحد لا يعني غير قلب دكتاسان لا يعني arrintaasna taasaan ka iri salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waqtigaygii baa la gaaray aan maxaan ku dhahay tagi lahaa waxaan idin leeyahay Soomaaliya tooso isku tiirsadayo hadba kiina taag daran taageer waligiin dhamaantiina waa idin wada salaamaya waqti yar baan haystay qof kasto damiir le dad nimo le ubax qaran absolutely ubax qaranay wala shaqaale waa ku salaamay gabdhaha Soomaaliyeed ha noolaadeen mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa odayaasha reer Galmudug dhamaantood walibana waxaan si qaas ugu mahad celinayaa sida ay gabdhaha Soomaaliyeed u siiyeen bayooratiga aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa aabayaal iyo adeerayaal وآد يا أد بلدكم هاد علينا آد يا أد بن قبيلة قبلها صاحولي حقي قبلها سي ما أنتيتو واحد بدن بان محن كنا هاي هذا أو نير قبلها واحد الله ما أقلا ما أنتيت قلمدك واحد بدن بيسيس قبله شرف بدن بيسمين وضياشي أبياشي يا ذا ردي أو شرفت لها وقاسيدي ملاقيدي غير قلمدك قبله واحد اللي يعني كنا نحذا حرته وإن محن كنا هاي تلا قدر يا ما قلمدك مقال محن maamul goboleedyada kale iyo dawladda dhexe oo inta yarta ku jirto adeerayaal gabdhaha reer Galmudugow hana ceebaynina dumarka Soomaaliyeed dhamaantood baad ka mas'uultiin soddon baad ku tiin baa la yir meesha dhexda xirta gabdhow dhexda xirto hana ceebaynina walaahi oo bilaahi waa ceeboobayna waxaan idin leeyahay dhexda xirta oo sidaad gurigiinii u dhaqi jirteen u dhaqa oo dadka isugu soo jiida oo dadka maxaan ku dhahay taadinku hooyatiine waxa weeye dadka isku soo jiida oo dadka u shaqeeya oo gabdhuhu waa ka daacadsan yihiin baa la yiri ragge waxa weeye gabdhow waa idinkaas oo gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan meel ay joogaan baad ka mas'uultiin gabdhaha reer Galmudug baarlamaanka sida xawliga u soo galay gabadha gudoomiyaha maxaan ku dhahay labaad noqotayba aad iyo aad baan idin salaamaya Soomaaliya ha noolaato dawladeenu ha noolaato cadowgeedu ha jabo horaha loo socdo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu